iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal senator Muuse Suudiye wuxuu ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii lagu laayay dhaqaatiirka howlgalayay deegaanka gololey ee ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya oo qarax miina halka lagu la beegsaday khasaare badan oo ka soo gaaray waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya looga fadhiyay baaris sax ay ku sameeyay dhacdadaas oo lagu eedeeyay ciidanka xoogga dalka inkastoo ay iska fogeeyeen waxaana uu sheegay senator Muuse in dadka baarista loo xil saaray waa sida uu sheegay ay yihiin kuwa ilaashanaya xilkooda aysan soo bandhigi karin warar xaqiiqo ah isagoo tilmaamay dawladda federaalka aysan wali jawaab rasmi ah aysan ka bixin qaabkii uu ku dhintay gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo qarax miidaaminaha lagu dilay Allah u naxariistay sanadkii aan soo dhaafnay falkan sida waxa ka dambeeyay loo helo waa adag tahay dadka labada meelood lagu baabashabo waa isku haldad ha ahaadaan ayaa isu adeegsaday waay oo falka ka dambeeyo 9 waa dhimatay 8 waa dhimatay baaris badan aan galay taliyaha ciidanka booliiska oo degmada balcad waa arka waa la hadlay gudoomiyaha waa la hadlay taliyaha nabad sugidda waa la hadlay xildhibaan hoomaha joogana waa la hadlay kulligood waa isla jireen haddaan warsadana nin wixii jira shayga karo waa ka waay siday ku dhinteen waxa ku muhiimsan wiilalaa dhintay ciidama dhintay yaa iskugu aaray hadday iyaga dhexdooda hadaa tahay oo tahay yaa ka dambeeyo maxaa lagu baxshay yaa waxeeyo annaka calaamatu su'aal weli waxaan ka qabnaa Yariisow injineer Yariisow baan ka qabnaa calaamatu su'aal sidoo ku dhintay kuma qanacsanin waa dhintay gabarhaye mataqaanaa indaha la aadishay waaga calaamad su'aalkeedii warkuna waa iska imaaha anu taageen arrintaani dad dawladda u shaqeeyo oo in shaqada laga baxsho la ka cabsanayo baaristeeda ma laga sugaayo dad buuqsan oo siyay waxyiin aan ogoonna ma laga sugaayo senator Muuse ayaa sheegay in arrintan baaristooda looga fadhiyo beesha caalamka waxaana uu sheegay in dalka aysan ka jirin dad la isku haleyn karo oo baaris noocaan oo kala sameyn kara arrintan caalamka wax heli karo waliba hay'adaha mataqaanaa dhaqaatiir waaye dadkan xuquuqul insaanka waa leeyihiin waa isku xiran yihiin laakiin saas waxa laga sugaa baaristooda iyo warkooda xaqiiqo ah caalamka maahini walax lagu kalsoon yahay oo dalkan ka jiro ma jiro dalkan waa la isku hayaa waa la islayhaa meel walba wax ka dhacayaan dhacdada lagu laayay dhaqaatiirtaas dalka u soo bixisay ayaa waxa dawladdu ay ku eedeysay inay ka dambeysay al-shabaab halka dadka deegaanka ay falkan ku eedeeyeen ciidanka xoogga dalka ee halkaas ku sugan